Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal, kusoo dhawaada channelkeena baro afka Isbaanishka. Topigeena maanta wuxuu waaye I hope ula dhici doontiin contentskan. Marka waa videogan horta waa videoga ugu horeeyay. Dhiirigelin noo reeba, share, like, comment, subscribe iyo wixii oo macquul ah. Maanta videogan waxaan ku baranaynaa ama waxa objectivekeena objectiveoda ooy macnaha ula jeedadeena oo maanta waxa waaye intaan waa 4 shay oo kala ah leer el alfabeto akhrinta alfabetka ama xarfaha Isbaanishka, sidoo kale escuchar y repetir sonidos dhegeysiga words dhegeysanayna ana iga dhegeysanaysin dan inaga ku celcelinaysin. Aprender barashada palabras con letras, so like words baranaysin dan waa isku xiraysin like inaga sentence sameynaysin like within this video inshallah ama videogan gudihiis. Repetir phrases, so like simple words like sentence algo iska fudud inaan qorno isku dayna inshallah. Then waxa waaye luqadda Isbaanishka like hadani khashu like marbada akhrisko taqaani akhrisko afka Soomaaliga afka Isbaanishka akhriskiisna waxa waaye waa macalina ku tahay guarantee waay. Then waxa ku sii soconayna las vocales. waxa ugu horeeyo las vocales waxa waaye Soomaali shaqal like the vowels like shaqalka waaye shaqal laantiis like ma akhri karti shayga waa ku adkaanaya adoo begina. So afka Carabi shaqal oo leeyahay afka Soomaaliga shaqal i o u leeyahay like isku mid way tan Englishka Swahiliga Carabiga Isbaanishka isku mid way kuli Carabiga ma ku jiro ma equivoco. Then a e i o i u, so intaas leewa inta Kiswahiliga Englishka iyo afka Soomaaliga. Then hadda ku sii socono intaan waxa waaye like tusaalooyin waaye oo lagu soo qaatay waakay sida caadiga u akhrinay. Then consonantes au xigto consonantes, so the consonants ama like inta ka soo hirtay vowelska waxa waaye waa consonantes. So consonants ko afka Isbaanishka iyo qaabka loogu dhawaaqayo waa kana b c ch d, waa sida Soomaaliga oo kale d f g g waxa ka dhigay waxa oo meel dheer ama la soo bixino. Then h so h oo qoranta laakiin afka Isbaanishka h ma lagu dhawaaqo h ane. Then khota k ej labada l lagu soo kordhiyay labada l afka Isbaanishka ya amala loo akhrina ej gooska isku dhijinay famino. Then l tiska caadi waay l m n enye tan kor wax ka sare enye alla so adoo inyo dhow samal enye famino. p q r labadan r idan waxa lagu dhawaaqaa xoog shid sare r, so afka Carabiga like adoo shid sar marka lagu dhahay ama shadka sida saas oo kale waaye c t v w x y z. intaas waaye alfabet muhiimadeena ma wax waaye alfabet qof walba akhri karo cid ku weydiinaysan ma laha alfabet ma taqaana laakiin muhiimada ha ku sii soconayna inshallah. laakiin waxa ku soo kordhiyaa like afka Isbaanishka sidii labada l iyo labada r iyo inta noocaas muhiim way like marka qoraysi hadda inta kor wax ka saarin macnaha uu isbedela famino. So forward ku sii baranayna haduu ilaahay dhaho cashiradana hore ku sii baranayna waxaan dhan tusaale
iyo qaabka saxda loogu dhawaaqayo markii oo xaraf oo relative ku ah marka aragti barani fahmi yani fahmino we work practically wakay vowels soo barani or las vocales then consonantes ka intaan ku barani vowel kalaas ay kooyin ama shaqalad wixii ka soo yirin waa consonantes marka page ka xigo vamos a la siguiente página then inta waxaan ku baranaynaa xaraf walbo like a e i o u then ada ka bilaabana palabras con a words ama xarfaha oo ada like a ka bilaabana palabras waa xarfaha wordska con a so amigo agua abuela atención año mujeda anti oo ku sheegeen qaabka lagu dhawaaqayo waatana iyadoo oo xarafe año like gooska isku dhejine so ano ma dhehaysa año so haddaa ka tagtid baashaas kor saaran wax kale oo qoratay familo waxaa jeebkaaga kale imaad weyso inaad kor ka saarti waay baashaas so that inay xarafka saxda noqoto then palabras con e i xarfaha e i ka bilaabana waxaa ka mid ah elefante estrella labada el waata estrella manaysa estrella enfermera esposa España isla importante insecto imagen idea so waa ka af Soomaaligiisa uu qoran yahay then ina isku dhibti maab like wax oo qaab sax loogu dhawaaqayo ma jiro just iska ilaali enters iyo labada l iyo labada r iska ilaali wixii kale afka Soomaaliga oo kale waay samarada idinku sheegay wax oo iska bedelay male sidiisa u aqrinayo sidii Englishka ama lagu dhahay this word like xaraftan hidden way xaraftan way soo saaranta xaraftan way qarsantahay tan waa la soo saaran ma aha hadda in the case of idea so idea is idea like of Somali amal loo aqrinayo then cuidado then palabras con o y u famino so palabras con o acá bilaabno ocho octubre ojo jeeda kha lagu dhawaaqa ojo ama jaada oficina oceana then soo laabano ubicación uno universidad urgente utilizar so za marka ku dhawaaqaysi wadamada ku xiran tahay laakiin hadda Spain dalka Spain aan joogtay zato waxaa lagu dhawaaqay ta ama lagu dhawaaqo utilizar and like some way marka Latin America joogtay sida Mexico kale Colombia zat ama xarafka za waxaa lagu dhawaaqaa s amal utilizar in this case utilizar so waa intaas af Soomaaliga noo ku qoran yahay Soomaalina ani aqriyo maro waxaan waaye afka afkiina hooyo then unless audience kale ku xiran yahay but dadkiga kala jiino inay daawanayaan waa kay marka a e i o u waa soo xirni aan dhawaaq oo like simple words aan soo qaaday so video yada soo socdo ama videogan dhamaadkiis
like sentencio ama jumlado xarfaan ku jiraan waa arki doonaa insha Allah. taasuu la socdaa. Then vamos. Then page-kan xigo waxaan ku baranaynaa combinaciones like isku keenkeenka like combinations in English. So combinaciones waxaa ka bilaabana ka, ko, kadib ku oo ugu dambeysinayna. So ka waxaa ka mid ah casa oo micneheedu yahay guri. Coco. Then cuchara. Cebolla. Cielo. Then sonidos, dhawaqa. So waxaa jiraan dhawaaqo oo xoogan like sida anigu sheegay mar hore, sida sonido fuerte jota ama ja, dhawaaqa xoogan oo ja'da. Then waxaa ka mid ah jugo. Then jirafa. Joven. Number 3, joven. Juego. Jueves. Just like how like don't was jueves. Then sonidos fuerte R, labada R. So perro, acá mete carro, tierra, carrito, correr. So taxan in like you like wow, حوجة صار shit عمل صار perro, carrito, carrer, like carrera, for example, the carrier in English, carrera, or correr, or to like carrito, que como supermarket de americano wax ku ridanaysa cada carrito la. Then frases para practicar. So like hadalo oo yar oo practice amal lagu soo qoray waay. Then waxaa ka mid ah la casa es grande. Guriga weyn, like guriga weyn. La casa guriga. La is an article, casa waa guriga, es waa is helping verb hore oo kusii baranina. Grande waa description ga bixinaysa adjective I think. La casa es grande, guriga weyn. Then tengo un perro. Ani waxaa leeyahay camal perro ay un waa article. El jugo es bueno. El amigo es bueno. La tierra es bonita. Veo una jirafa. Was simple phrases. Veo una jirafa. La tierra es bonita. So wax oo like adag ma jiro, just you waxaa ka taxadiri sidii jeeda oo lagu dhawaaqo khota iyo labada R oo xoog ugu taagsanaysi. Then labada L oo isla socdaan ya camal ugu dhawaaqay. Nada más intaas wax dheer ba jirin. Then finally so follow like adapting like más contenidos, sígueme para más. So waa kana YouTube ke. Then aniga dhaxalku baashaan keena buuqayna intaa ka wadanayna. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum. Adios.